waftigii warkacay la taliyaha madaxweynaha arrimaha bulshada Cabdiwaaxid Cabdiqaadir Cabdiraxmaan oo wehelinayaan saraakiil ka tirsan madaxtooyada agaasimaha guud ee guddiga qandaraasyada gudoomiye ku-xigeenka hay'adda kahortagga aafooyinka iyo kaydka qaranka iyo mas'uuliyiin kale ayaa kormeeray maanta cisbitaalka guud ee magaalada Laascaanood iyagoo deeq xoolaha ku wareejiyay bukaanjiifka qaybta TBda ee cisbitaalka Laascaanood waxaana ugu horeyntii halkaasi uga warbixiyay xaaladda caafimaadka gobolka isduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Dr. Bilax Xajima maxaad celinayna deeqda ariga aad bisha Ramadaan Eid aad ku soo beegteen Eidda farxad weyn bay u tahay dadka buka anaga lafteeda farxad weyn noo tahado xoomaan lahayn Eidda laakiin ma sha Allah hadii Ilaahay idinkeeda ku soo dhiibay aad iyo aad baan idinku mahad celinayna deeqda ariga aad ugu wareejiseen waana deeqdii koowaad ee hadda bisha Ramadaan aanu ku hayno kulli waftigan looga yimid Hargeysa taa markan kaga baxo ariga haddaan siiyo warbixin guud gobolka Sool hadda xaaladda caafimaad aad iyo aad u fiican meel fiican oo maraya la taliyaha madaxweynaha arrimaha bulshada Cabdiwaaxid Cabdiqaadir Cabdiraxmaan iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka hay'adda kahortagga aafooyinka iyo kaydka qaranka ayaa sheegay in mar walba ay xukuumadoodu garab taagan tahay sidii ay u garab istaagi lahaayeen dadka jilicsan ee ku sugan cisbitaalka weyn ee magaalada Laascaanood waxaan mahad celinaynaa mas'uuliyiinta kala duwan ee caafimaadka gobolka Sool ugu horeeyay Suduwa Bile runtii shaqo wanaagsan oo aad qiimo badan guud ahaan gobolka ka haya sida halkan laga warbixiyay caafimaadka gobolka Sool sanadihii u dambeeyay xukuumadaha kulmiye isbedel weyn ay sameeyeen waxa halkan la inooga sheegay 20 MCH oo degmooyinka tuulooyinka gobolka ah 30 MCH oo duulooyinka iyo degmooyinka gobolka ah in hawlo caafimaad ay ka socdaan intooda badan na ay hay'adaha gacanta ku hayaan halkaas oo shaqaale badan laga qoray gumno filan la siiyo waxay taasi runtii laba arrimoodba waxay muujinaysaa in wax laga qabtay dhinaca caafimaadka iyo dhinaca shaqo abuurka dadka magaalooyinka iyo tuulooyinka ku noolaa iyagoo magaalooyinkoodii jooga in halkooda caafimaadka ku gaaro sidoo kale shaqo abuur loogu sameeyo aad iyo aad runtii qurux badan tahay shaqada wanaagsan ee mas'uuliyiinta caafimaadku hayaan xukuumaddan way ka go'an tahay kulmiye madana Muuse Biix Cabdi madaxweynaha ka yahay in la sii xoojiyo horumarka caafimaadka gobolka Sool isbitaalka qalabayntiiba ku soo socota dhismihiina wuu inoo dhamaaday dhakhaatiirta wixii ka dhiman insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa wasaaradda caafimaadka iyo idinkoo iskaashanaya marka qalabkaasi yimaado in loo dhameystiro waxaan ugu mahad celinayaa wasaaradda caafimaadka iyo suduwaheeda iyo madaxda isbitaalka sida fiican ee ay bulshada ugu adeegayaan ay u gaarsiiyeen waliba deegaanada ka baxsan magaalada caafimaadkii iyo waxyaabihii dadku u baahnaayeen isbitaalka Laascaanood baan ku suganahay maanta bisha 14 bisha 6 maalin khamiisa 29 bisha Ramadaan ilaahay waxaan ku baryaa markuu horeysa amaasha aan soo sooyay ilaahay naga aqoon miisaanka aakhir noogu daro inta kadib halka waxa ugu soo waqti balaaran oo heer qaran ah oo ay ka mid yihiin agaasimayaal iyo la taliyayaal iyo gudoomiye ku-xigeenno wasaaradda caafimaadka dhamaanteed ugu horeeyay Suduwa iyo dhaqaatiirtiisii halka waxaan u nimay inaan eegno xaaladda isbitaalka ku jiro si loo arko horumarka isbitaalka ka jira iyo wixii gaab ah oo harsan waxa kaloo socdaalka noo heliyay deeq ariya oo waftiga ay ku wareejisay bukaanjiifta qaybta TB-ga uuna talagalay inay ku farxaan maalinta Ciidda Samiir Saciid Bilaj warbaahinta GTN Laascaanood